mahadcelintaas markay naga dhamaato aniga maanta waxaan rabaa arrin garnaqsi ah hadal garnaqsi ah inaan goobtan ka soo jeediyo waxaan rabaa inaan la garnaqsado madaxweynaha Soomaaliya walaalkay in adeerkay maxaa Cabdullaahi Farmaajo madaxweynuhu in adeerow dadka gobolkan ku nool iyo bulshada reer Jubbaland xadgudubyada kaaga imaanayo oo sanadaha socday oo xeerkii dalka iyo dastuurkii aad ku dhaaratay ka baxsan naga jooji way nagu filanta maxaa yeelay deegaan doorashadan ceel waaq maanta ka dhacday waxay ahayd in Garbaarey oo magaalo madaxda gobolka lagu qabto maxaa sababay inay inta jiitanto oo halkan timaado adaa sabab u ah qalwadii masbaa galay amar khaldan iyo direction khaldan umad aad siisay iyo taladaada guracan ayay suurtagal ku noqon weyday magaalo madaxda gobolkan in doorashada lagu qabto oo u qalantay taas oo gaal iyo islaamba ay maanta marxaati ka noqdeen oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay marxaati ka noqotay oo ummadda reer Jubbaland oo dhan ay marxaati ka noqotay sababtayna in la bedelo oo guddigii hirgelinta doorashooyinka heer federaal ay bedelaan oo ra'iisul wasaaraha doorashada hogaaminay ku raaco oo la yiraahdo waa gar maanta halka lagu ma qaban karo degmada kale oo lagu qaban karo oo dadka wax wada leh wada tagi karaan oo ku tartami karaan ha loo wareejiyo sidaas ayay madaxda ceel waqti joogto ama heer maamul ama heer amni iyo salaadiinta iyo shacabka reer ceel waqay maanta sharafta ku heleen in la yiraahdo ayaga mudan maxaa yeelay inta waxa ka dhaxeeyeen meesha kaliya wada tagi karaan ayagoo kala aragti gidisan kala fikir ah kala damac ah oo ku tartami karaan oo sidaan oo kala hawshooda ay ugu dhamaan kartaa ayay ceel waq ku guuleysatay magaalo madaxdii sharafta lahayd oo aan runtii aad iyo aad ugu xumahay kana xanuunsanay taariikhdan sheegi doonto waxaad geysay ciidan amar ku qabo in dadka gobolkan ay kala qaybiyaan la diriraan sharciga baal ka maraan annaga ayna dilaan haddaa taa samaysay 16 xildhibaan baa gobolkan ku asteysnay 16 xildhibaan adigu mana badinaysid mana yareynaysid 2004 bishii 8aad 22keedii meeshii lagu astay bay joogaan beelihii lagu calaamaday baana weli leh ma badin kartid mana yareyn kartid beelihina kama bedeli kartid oo doorasho qof iyo cod waa ku guul dareysatay oo way isbedeli lahaayeen haddana beelihii baa qaatay ku tartamay helay mushkiladda kale kada waa nagu filan tahay mushkilad intaad nagu samaysay kada waxaad doonaysaa cod 2012 waa tartantay xildhibaanada gobolkan ka soo baxay cod baad ka bariday waa ku siiyeen maadaa soo xusho keenay maadaa lacag ku bixiyay way ku siiyeen madaxweynaha noqotay oo 2000 iyo maxay ahayd 17 Febraayo Kismaayo lagu wada doortay dhamaantood cod baa weydiisato waa ku siiyeen war maanta haddii musharax tahay cod weydiiso qofka walaalow codkaada siibaad ku leedahay laakiin inaad meel kale isku qaado macna kuma samaynayso xildhibaanadii waa soo baxeen gogol dhigo xudxudo cod weydiiso wixii inta ka baxsan oo samayso haddii kumana shaqaynayso adigana cadaawadii waxaad kala kulmaysaa iyo taariikh xumo waad kala kulmaysaa annaga gobolkan baan ku dhalanay
soddon sanaan ka khidmaynayni bi waayo iska xisho tacabka iyagii oo dhan baad burburisay wax allay wixii tacab ahaa oo ummaddaas midnimadooda ahaa oo horumarkooda ahaa baad burburisay maamulkoodii baad burburisay ammaankoodii baad burburisay garsoorkoodii baad burburisay waa maxay waxa kaaga lumay oo Soomaaliya gobolkan kaga gedisan yihiin beebihii Istanbul Soomaaliya ka heshay iyo birgeerkii buur aamino wadariska ahayn iyo boqolaal dhalinyaro Soomaaliyeed oo qarannimadii ku qabaansatay intaad adeegsatay inaad annaga nagu beegsato xal maaha wadamaankiyagii iyo midnimadayadii ciidankii baad kala qaybisay maamulkii baad kala burburisay bulshadii baa kala qaybisay adeero billah calayk madaxweynuhu ina adeero inta way nagu filantay gobolka iyaga iyo state-ka iyaga ka joog والله way nagu filantay enough is enough enough is enough halkan ilaahay baa inoo khalqay Kenya deris la nahay 900 kilomitir Ethiopia deris la nahay macaabil walaalnimo ay naga dhaxeeyo qaranka iyagii markuu burburay waa cuskanay iskuuladoodan baranaa deeqda cross border nooga timaado waa macaamilna nalka nooga yimaado sharciga nooga yimaado cadow nooma aha adigu danahaada guraacan iyo ummadda Soomaaliyeed jahawareerka ku sameynaysa kada halka ciidan am Soomaha ceel waqtigan garbaareen ciidan am Soomaha jooga waxaad ummadda Soomaaliyeed leedahay garbaareen waa meel Soomaaliyeed ceel waqna waa Kenya oo laba ciidan oo am Soomaha sharci ku jooga dalka oo mid walba ammaanka ka nagala qayb qaato marka garbaareen Ethiopia bay noqonay ceel waqna Kenya bay noqonay waxaas sax maaha ummadda jahawareerinayso iyo dadkan xilkaska ahayn oo sharafta gobolkan iyo shacabkan aad ku qarribtay ummadan oo caaytamay oo waajibaadka siisay inay bini aadamka caayaan ka joog shaatiga qaranka iyo madaxtinimada iyo xeerka ku dhaaratay iyo ilaahay dartii nooga xisho waa bil Ramadaan aad iyo aad baa mahadsantihiin hadalka waa garnaqsi waana caqabad إنه هرتاجن وي